kulankan oo ay kasoo qayb galeen xubno kamid ah qalinjabiyaasha jaamacadda Muqdisho oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka naadiga qalinjabiyaasha jaamacadda Muqdisho ayaa ahaa mid ku dhisnaa kala faa'iideysi dhanka khibradaha iyo wada sheekeysi. La qaxwee qalinjabiyaasha ayaa magac ahaan loogu gaaryeelay si uu u noqdo mid ay isku arkaan ardadii ka qalin bedelatay jaamacadda Muqdisho. tababarka ku saabsanaa qorshaha istiraatiijiyadeed iyo kaalinta uu ku leeyahay kobcinta iyo korinta shirkadaha ayaa qayb ka ahaa kulanka. qalinjabiyaasha ayaa faalo iyo su'aalaba ka bixinayay tababarka. markii uu soo idlaaday ayaan la hadalnay Safiya Maxamed iyo Maxamed Nuur oo kamid ahaa xubnaha ka qayb galay la qaxwee qalinjabiyaasha. waxaan u mahadcelinayaa tiimka jaamacadda Muqdisho gaar ahaan tiimka alumni qaabishan oo soo agaasimay ama maanta daah furay barnaamijkan loo yaqaano Coffee with Alumni Ustaad Cabdiraxmaan Xirsi oo isagana kamid ahaa ardaydii qaybta masterka ee jaamacadda Muqdisho ka baxday isagoo ka socda shirkada Haasi wuxuu maanta noo faa'iideeyay waxyaabo badan oo ku saabsan strategic thinking iyo strategic management iyo sida ay shirkaduhu u maareyn karaan ama u naqshadeyn karaan mustaqbalkooda iyo sida ay u yeelan lahaayeen hab fikir dheer oo ku dhisan mid natiijo uga keenaysa shirkadaha ama shirkadaha ka caawimaysa sidii ay muddo dheer u jiri lahaayeen isla markaana shirkaduhu ay noqon lahaayeen kuwa la iska dhaxlo iyadoo tayadooda aysan marna hoos u dhicin. aan ka mid ahay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Muqdisho sanadihii hore maanta waxaan dufcadii kama barnaamijka ugu horeeyay uu qabsoomay jaamacadda Muqdisho barnaamijkeeda ardayda qalin jabinta maanta kofeega aan wada cabnay waxaan ku lamaansanaa barnaamijka bandhiga ama cilmi kororsiga barnaamijka Haasi oo Ustaad Cabdirasaaq Martin ugu ahaa waxaan ka faa'iidnay runtii ganacsiga iyo maxaan ku yiraahday sida loo aasaaso waxyaabaha ku keena fashilka iyo ugu dambeyntiina ganacsiga hadduu najaaxo asbaabaha uu ku guuleysto hadduu fashilmana waxyaabaha u keena inuu fashilmo. Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo kamid ah qalinjabiyaasha jaamacadda Muqdisho sidoo kalena ah gudoomiyaha shirkadda Haasi oo ah shirkad ka shaqeysa la talinta oo ka howlgasha Geeska Afrika ayaa bixinayay tababarka. waxaan runtii sharaf weyn iyo karaamo noo ahayd kulankan aan ka soo qayb galo anigu shakhsiyan oo aan la wadaago alumnayga ama dadkii ka baxay qaar ka mid ah jaamacadda Muqdisho oo dad runtii guuleystay oo successful ah oo ganacsiyo iyo institutions maamulo ama sameeyay inaan la wadaago muhiimadda strategic balaanka iyo qorshaha istiraatiijiga iyo horfakirka iyo in dadku ay si weyn u fikiraan ay u leedahay joogteynta iyo dhismaha iyo ilaalinta kobcinta iyo korinta organizationka hadduu yahay mid business iyo hadduu yahay mid aan business ahayn ama ganacsi aan ahaynba runtii waxay ahayd maaragtay kulan xiiso leh oo aaraa badan iyo afkaar badan la isku weydaarsaday. Maxamed Faarax Raage oo ah agaasimaha xafiiska maamulka naadiga qalinjabiyaasha ee jaamacadda Muqdisho ayaa boogaadiyay la qaxwee qalinjabiyaasha. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan daah furno program cusub oo aad u qiimo badan oo aan ugu talagalnay in ardayda jaamacadda Muqdisho ka qalin jabisay aqoontooda iyo way aragnimadooda iyo xirfadaha ay leeyihiin inay isku weydaarsadaan oo ay shaaxabaan oo qof walba qofka kale cilmiga iyo aqoonta iyo way aragnimada uu dheer yahay in dhaxdayna aan kala faa'iideysano ugu talagalnay oo sida boorka hadda ka muuqataba u jeedaan oo ah Coffee with Alumni oo ah la qaxwee alumni-gaada marka waxaan ugu talagalnaa program kala faa'iideysi khibrad iyo way aragnimo in ardaydu ay kala faa'iideystaan programka maadaama uu bilow ahaa waxay ka imaadeen dadkaas kala duwan sectors kala duwan oo qaybaha kala duwan ee nolosha ama businesska kala duwan waxa ku jiray dad ka socday qaybta dawladda oo kale waxa ku jiray dad businesska iyo bangiyada meelaha kala duwan dad waxa ku jiray maxaa la yiraahdaa ayaka business ay leeyihiin iyo shirkado ay ka aasaaseen maxaa la yiraahdaa mas'uuliyiin iyo howlwadeenka ay ku jiray marka programkan maadaama program furitaan oo ahaa waxaan ugu talagalnay in aragtida iyo fikirka ama conceptiga iyo programka inaan isla fahanno oo meelo kala duwan dadka imaadeen aan ku marti qaadnay oo wada mas'uuliyiin ah
laakiin mustaqbalka waxaan wadnaa asigoo takhasus ah inaan meelo kala duwan aan u sameeyno oo maalmaha qaarkood dadka tiknoolajiyada bartay aan u diyaarino mar dadka caafimaadka aan u diyaarino mar dadka siyaasadda iyo xiriirka caalamiga bartay aan u diyaarino waxyaabahaas oo dhan waxay kaabi doonaan khibradda iyo waayo-aragnimada iyo aqoonta ay dadku leeyihiin in la sii kobciyo kulanka oo sahlay in wejiyo qaar oo muddo isugu dambeysay ay ku kulmaan aqoon isweydaarsi iyo wada qaxween ayaa ahaa mid farxad iyo niyad wanaag laga dheehanayay xubnihii ka qaybgalayay.